madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlayay magaciisa ka dawladda iyo ka shacbiga reer Soomaaliland waxa uu dhambaal hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee loo doortay dawladda federaalka ee dalkaanu jaarka nahay ee Itoobiya Sahle Work Sunday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu ku hambaliyay madaxweynaha cusub ee dawladda federaalka Itoobiya guusha ay ka gaadhay doorashada baarlamaanka dalka Itoobiya taasoo noqonaysa taariikhda markii ugu horeysay ka dhigaysa in dalkaas Itoobiya ay madaxweyne ka noqoto haweeney taasoo madaxweynaha Soomaaliland uu si gaar ah ugu hambaliyay dalka Itoobiya tallaabada ugubka ee ay qaadeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu hambalyo taalamid u diray dawladda federaalka Itoobiya shacbiyada dalkaas oo aad dal ay jaarnimo iyo xiriir qoto dheer wadaagno ayaa lagu yiri war saxaafadeedkan waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha cusub ee la doortay u rajeeyay guul horumar iyo inay halka ka sii amba qaado iskaashiga ka dhaxeeya dalka Itoobiya iyo Soomaaliland ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu madaxweynaha xilka baneeyay ku bogaadiyay doorkii uu ku lahaa xiriirka soo jireenka ee dalalka Soomaaliland iyo Itoobiya muddadii uu xilka hayay war saxaafadeedkan ka soo baxay qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hambaliyada ugu diray dalka Itoobiya waxa ku saxnaa afayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac